haddii dawladdii ay sharcigii jabisay oo ay maanta inamada yar ee habaryoon istirdoon inta laga dhigtay hablihii siweer awal la doonayo in loogu hanjabo loogu handado dee annaguna waa jabinaynaa sharciga sababtoo ah wax sharciga naga hor istaagaya iyo wax noo diidaya ma jiraan aan awoodeeda reernimo isticmaalno oo aniga raggaygu soo galaan ciyaarta ballan weeyaan waan u sheegayaa dhammaan anigu ma cabanayo naag cabatana ma ihi laakiin ummadda reer Somaliland waxaan u sheegayaa inaanay jirin dawlad ay sugaan waayo anigoo maanta muwaadinada oo dalkayga jecel oo ku caanamaala ku soo koray oo la garanayo oo inta ay taqaaneen social media ku jiray maalin aan ka shaqeyn dalkayga waxaan daad ku ah ayaa la ii geystay falxumada aad arkaysaa oo inama yaryar habaryoonisi inta Facebook ku soo qoreen in wanjaleen ay yiraahdeen sirdoon bay la soo kulantay war anigu Israa'iil baan tagayaa xor baanay meeshaan rabaan ka degaya laakiin dalkayga waan jecelay dadkaygana waan jecelay inanka yari aniga wuxuu igu shirqoolay ayay sirdoonkii dhanaa ee Somaliland ee loo baahnaa inay sharciga ilaaliyaan aniga iigu xadgudbeen oo iigu handadeen oo moobladay mid kalena waan u sheegayaa sirdoonka Somaliland sawirada shirkada mooblada moobilkayga ka saarateen yaa qof preference lama moobilkayga anigu dab waxay igu jiraan oo xora haddii ay soo baxdo day ummadeydana waan u sheegayaa inamada yar aniga reernimo igula dhaqmeen waxay igu haysteen reernimo bay ahayd awoodda isticmaal awoodda Cabdiraxmaan Ciray ahayd waanan intaasan hadalka ku soo koobayaa wala idin la hadli doonaa waxa kale oo u sheegayaan ogeysiinaya ummadda reer Somaliland iyo beeshida Suweera walba inuu soo noqonayo madaxweynihii qarankii Somaliland mudane Muuse Biixi Cabdi